waxaad jirtaa sanadkan anu markii horeysa hay'addan u shaqeeyaan Director Somali Media Entertainment hay'adduna sanadkan waxaan ururinay abaaraha bariga galbeed iyo Somaliland oo dhan dhammaanteed dad abaarihii saameysay waxaad jirtay fanaan ku jiray programka sanadkan la taxinayay oo ah fanaanka Cabdihani Xaashi Cabdilaahi oo raacayay wafdi noo iman lahayn Director sanadkan oo dawladda ku jirta ninkii fanaanka waxa dhacday lacag leedii oo gudoomiyahoodu yidhi ninka loola Axmed Wali Farole oo ahaa gudoomiyaha markaas iyo Xasan Duxul Laab Saalax gudoomiyaha imikana ayaa yidhi fanaaniinkeena marka la xinayo lacag hore ayaa la siisiyaa advance payment loo advance payment kii 10,000 fiisiisi waxna ka xumaaneen sidii lacag hore siisay marka lacagtii hore markaan siisinay 20,000 oo uu sii dhaafay 5,000 fiisadii alaabtii soo baxeen alaabaran oo kharashna uu sii weydiiyay oo idin ECEB sidaan u haysto markaad imatid ay keentid oo ku jirtay saacad dahab ah oo ku jirtay gadgets yaal telefono iPad-yaal iyo markii fiisadii soo baxday ninkii isbedelay wili ma doonayo intaan baxo intaan imaado Director oo hawshan ma doonayo intaan fuliyo markii lacagtan sii siinay waxaan weydiinay shubqad noo soo cadaan lacag ku sino waan problem no waan raacaysaa marka waqad insurance ha soo si wuxuu waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda faafinta waxaan yahay fanaan qaran dad tahayna waxaan roonay noo soo cadee marka wuxuu noo soo keenay waqad oo recommendation letter la orado oo ka soo qoray wasiirka wasaaradda faafinta Cusmaan Cabdilaahi Saxadiid oo le fanaanku wuxuu yahay is a member of the national artist group called Xidhiidha Geeska which is employed by the Ministry of Information of Somaliland bashaaru qaata lacagtan waqadan waxaad waqadii hore lacag loo siiyay oo cadeynte oo qofkaas intii yahay employed waqada lacag ku siisay wasiirka faafinta qofkii markuu diiday intuu baxo oo hawshii contract uu la saxay wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska iyo the Art Council England iyo hay'adeena markii aan u tagnay wasiirka wuxuu ku jawaabay ma aha fanaaniinta Xidhiidha Geeska ma aha dad ka shaqeeya wasaaradda faafinta Somaliland Cabdihani waa la xiray waxa soo xiray taliyaha dhinaca New Hargeysa police station ku yaala New Hargeysa markuu soo xiray wuxuu yidhi waxa jirta arrin sidaas oo aad contractka saxiixday oo lacag aad sii qaadatay oo investment badan lagu sameeyay arrintii waxa tiri ma doonayo intaan fuliyo arrintii sidaad u fulisid qasabay ku tahay oo contractka saxiixay hadii kale lacagtii soo celi investmentkii ku baxday la soo siiyay markii la xiray waxa soo dhaxgalay afyeenka madaxtooyada oo Hussein inana ka tirsan oo Xidhiidha Geeska oo mas'uul oo maamulka ku jira wuxuu u tiri taliyihii channelka booliiska wuxuu tiri channelka booliiska ana amarqa ana dimir qaadaya ana mas'uul qaadaya ana hawshan galaya ana labada dhinac isku keenaya labada dhinac markaan isku keeno ana ka dhaxgalaya hawshan maadaama inankan uu yahay fanaanteedii hay'adna hawshan aan dusha ka ogaa markaas markii uu damir qaaday intuu labada dhinac isku keenay head oo balanta uu qaaday channelka booliiska muu fulin isluna balantii uu qaaday iskii labaad uu galay weentani 15 uu qaatay oo maxalonaya kharash ku baxay hay'adda tahay hantidii dawladda Ingiriiska funding siiso waxaan contract aan saxiixnayn tahay dawladda Ingiriiska sharciga waxaan ka soo ka codsan lahayn xukuumadda Soomaaliya sharci waa marinay hawshan
oo $40,000 oo investment ay dhashay tanina falxumo ay kusoo noqon doontaa dowladda Somaliland haddii wax laga qaban laba nootayaan la saxnay oo cadayna oo ku qoran 15,000 oo lacag inta la siiyay kharashkii ku baxday hawsha iyo investment yaashii loo sameeyay Ingiriiska mukumani lahaa marka waxaan ka codsan lahaa xukuumadda sidaayo intay arintan ay dhexgalaan waxa jirta hawshan loo ogaa maalintii la asaasiyay wasiirka wasaaradda faafinta cadaani aan u tagnay aan qoranay mudane wasiir hawshan ara waqad soo saxay qofkaas waxa tiri waa shaqaale wasaaradda qofka wax ka qabo xadii kale de hawshani intan maxkamadda marina weeyaan ceeb ku tahay fanka cabdihani wuxuu noo sameeyay oo hay'ad ku sameeyay aan waxaan nahay dad doonayay wadanka oo Soomaaliland muwaadin Somaliland oo doonayay wadanka inta waxaan u qabano abaaraha iyo waxaan u ururino marka waxaan ka codsanahay xukuumadda intay hawshan ay dhexgalaan ee talaabo sharci ee mariyaan nootayada anoo ixtiraamana sharciga oo ixtiraam u hayna weyn iyo maxkamadda waxaan codsanahay mar kale intay hawshan ay dhexgalaan ee talaabada sharci mariyaan kasta oo lug ku leh hawshan oo is og cadaaladda ayaana kala saari doontaa maxkamaddana waan diin doonaa qof kasta ku jira arrintan ee foolxumada ka dhacday oo dad mas'uuliina oo ku jira yihiin